حلما أيقظ أشواقي بطموح يرسم أفراحي قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي فرأينا المجد بإصباحي فتهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح والطير يغردكم مرحا بنشيد العذب الصداح بنشيد waxaan la yaabaa gabar baa ila soo hadashay telefoon xagee igala soo hadashay Mareykanka waa laga yaabaa fiidiyogan inuu gaaro falidaalika magaceeda ma sheegayo si aynan fidnaba ugu noqon iyada waxay igu tiri su'aal cajiiba waxay tiri sheekhow bal ii soo ducee maalmaha nabigii ma arkine nabiga ru'yadiisii baan waayay markaasaan waxaan oo miyaad arki jirtay waxay tiri habeen kasta waan arki jiray في كل ليلة نبي وأرك جري لكن مالمها ما أركن مركا قربا هي ستيسو الدعاء وهذا مركا يعني أنا جاي وحي ويديني شيء ما هيستنع مداس ماشي وحي ويديني شيء أنا جاي بقى إن كفى إذا استوى ويدي سنقطة شمة وهذا بالمحاد سمي ساء والنبي هبين كستات كوارك تان سمي وحي تريد سلقي سام بدين جري iska yar diiday laakiin waxa iga muuqatay in ilaa 10 kun iyo ka badan ku sallaysan nabiga kaleey salaatu wassalaam oo inta yar mashquushay xogaa ay ka gaabisay cadadkiyo dabadeedna ru'yadii halka ay ku weydiin waliba ma xagee joogtaa wadan gaal bay joogtaa wadan gaalay joogtaa gaala wadan male yani ardullahi kullaha meesha gaaladu u badan tahay waa ani wadamada gaalada in la yiraahdo ma jecli laana ilaahay baa iska leh wadanka الأرض لله كلها ملك استود ربك كبرته والنبي عليه الصلاة والسلام على قل يلتنا يعني ويكوه الجليس لأن الأرض كلها لله مركز صلى النبي إن بدن عليه الصلاة والسلام أيها لنا قدون إياه ختام كلامي إخوتي الكرام إلهي سبحانه وتعالى هنا وافجيه إن ذكر جيسة يا حسوس تيسة ليلا ونهارا نكون مشغول سنان وقت جيسة عدي وأرب الله دافي لكن ساعد على شيء معها تعالوا نؤمن بربنا ساعة معها نؤمن بربنا ساعة وإن يسبد ساعات إن شاء الله أوقات لنا وإن وأقلنا وحن إذن دردار ميا نفت إذن أو دردار ميا إلهي هاي وافجيه دي كان الله إذن وافجيه وحقوين إلهي نسيه وقرآنك قرآنك إلهينا وردك يا لنا وردي إن ديالته وهذا كتجن ugu yaraan ninka iska caamada muslimiina in xaafidka ahayn juz baa laga rabaa maalin kasta akhri juz bishii hal mar dhamee waa kalaamullah wax ka weyn ma jiro haddaad fariid noqoto oo laba juz akhrido oo bishii laba goor dhameysana waa fiican tahay amma dadka khawaasta waxaan u jeedaa quraanka iyagu xifdiyay amba soo maray dugsi ama kada iyaga waa inay ka badiyaan 3 juz waa inayna ka yaraanin haddii usbuucii maalin aad quraanka dhamayn kartana waa nicmo weyn weyn tahdi ilaahay ku waafajiyo waxa ku dhiman adkaarta kale inaad iyadana badsato oo salliga nabiga ka mid yahay istighfaartu ay ka mid tahay al-inaba ila Allah salatu al-layl salatu ad-duha umuraha soo dhan in aad ka dhigato nu'min bi rabbina saa'a in guriyaheena aanu ka samaysano xalaqa ta'liim aanu ilaahay isku xusuusinayno oo dhikrigiisa aanu ku xusayno maxaa yeelay wax kaste gurigii waqti way leeyihiin illa dhikr Allah dhikri ilaahina in waqti loo sameeyo waxaan shaki ku jirin dhibaatooyinka guriyaha ishaysashada iyo mashaakilka ninka iyo naagta ku dhaca ciyaalka maaragtay ilmahooda hooyadood iyo aabahood iyo caaq ku noqda waxa asaas u ah xalaqatu ta'liim gurigii male guriga waa in malaa'ig la soo galiyo malaa'igtuna xalaqatu ta'liimkay ku soo galaysaa xalaqatu ta'liim marka lagu leeyahay ma aha inaad telefisyon wax ka daawanayso sheekh baa ka hadlay halkan ma aha adigu samee adiga reerkood dhan isu yimaadeen ha fariisteen quraan yar hal akhristo ahadiista nabigana hal akhristo intaas waa sooriyadii malaa'igta weey guriga malaa'igtu soo gasho muddo markay sidaa ku socoto wax iswedel weyn baa ku dhacaya tawfiiqda allahna waafajiyo insha Allah ta'ala waa meesha dhakhtaradu dadka imika ay kula taliyaan yiraahdaan cuntadana iska yareeya socodkana badiya dhakhtar Romaana ayaa u yimiday Harun al-Rashid markaasuu ku yiri yaa ayuha al-malik
qur'aankiinu waanu fiirsado cilm al-adyan uu ka warrama samada jannada naarta shariicada aakhirada qiyaamaha laakiin cilm al-abdan kama warrama cilm al-abdan waa cilmiga dhakhtarnimada Abdulmalik wuxuu ku yiri Harun Rashid baa ku yiri aayad barkeed ayaa dhakhtarnimada dhanba Ilaahay noogu sheegay adaana fahamsanayn buu ku yiri markaasuu ifas ii sheeg marka Harun Rashid baa ku yiri khaadimkiisii kulu washrabu wala tusrifu ufasiru macnaa buu yiri waa dhakhtar cadaana aayada kaliya aayada barkeed baa loo macneeyay wallahi wuxuu yiri waa run quraanku hadaa cilmi uu ka tagay haba yaraatay ma jirta buu yiri waxaan annagu aan ogaanay buu hadaan dhakhtar aan nahay xanuunada u badan ee bini aadanka gaara waxay ka soo gaaraan waa caloosha cunta ay ku jirto cunto kale laga dulgeeyo طعام على الطعام marka shariicada islaamku shahawaadkaaga adduunka dusheeda aad ku gudanayso xuduud baa u yeeshay xuduud hadalkii waa lagu xadiday man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyasmut falyaqul khayran aw la yasmut munabigu qofkii ilaahay inuu jiro rumaysan aakhire inay jirtana ku xisaabtamayo khayr ku hadal buu nabigu ama iska aamus hadalku waa nicmad u dhamaada maqalku waa nicmad u dhamaada araggu waa nicmad u dhamaada u fiirso 20 jirka 80 jirku masku maqalba may masku aragba may masku quwadba xagga hadalka may masku socodba may 80 jirku markaad soo taagto wuxuu qoranayaa kumaad hayd buu qoranayaa adeer kumaad hayd hadalka uu isdhimi aragga uu isdhimi maqalka uu isdhimi wuxuu qoranayaa hadalka kor igu qaad limaada lana nicmadu way soo dhamaatay ya ma'shar ash-shabab waxaan arkaa mujtamacan bifadli Allah azza wa jalla dhalinyar buu badan yahay masaajida meelaha badan oo soo marayna mujtamaca masaajida soo amraya waa dhalinyaro waxaan nafteydana ku waaninaya ininkana nagu waaninaya nicamta ilaahay nasiiyay halkii loogu talagalay han dhigno yaan cidla ku dayicin inba sakhraan buu ahaabale sakhraan habeen walba abihi buu garaaci jiru dili jiray marka jaarka uu soo baxo ka celiyo warduqa iska daa habeenada kamida qolku khamriga ka soo dhargay ayuu intuu yimid scotch alcohol buu afka kaga dhajiyay degtuu ku qaatay magaaladii buu kala baxay banaanka markuu la baxay buu ka furay baa la afkii qolku odayga dhiman gaaray wuxuu aab naqaskaad ugu dhajisay wadiga maanta magaaladii igala soo baxay halkeed ugu wadaa wuxuu qudda kaaga jaraya buu maanta waa sakhraan markaasuu yidhi ma inaad dishaadii soo saaratay ha geedka hay dhaafinahu igu hoos dil buu ku yidhi geedkaas sakhraankii baa ku yidhi geedkan maxaad u dooratay ii sheeg wuxuu yidhi waa kii aniguna aabbahay aan hoostiisa ku dilay buu yidhi waa waxaan geystay sidaad waalidkaaga maanta aad u qabato ayaa adigana ilmahaagu ku qaban ogow Urwata bin Zubayr waxaan hooyaday cuntada ula cuni waayay luqmada ay tamacday isha ku qabato inaan ka hor cuno oon caaqul waaliday ku noqdaan ka baqay buu maalintay dhimatana sida ilmaha yar buu u ooyay markaa baa lagu yaa Urwa asxaabu rasuulillaahi ragi waa weynaabaan weynu naga dhintay umaan ooyina waa sabirnee maxaad hooyada aad ugu ooyaysaa baa lagu yidhi sidan wuxuu yidhi hooyo dhimashadeedu waa xaq lama ooyaya buu yidhi arrinkaas waxaan la ooyaan nin sheegi buu yidhi hee albaabadii jannada ka mida looga gelaayay ayaa iga xidhmay buu yidhi maanta oo iga xidhmoon la ooyayaa buu ka yidhi samafalka hooyaday aan u samafalayo baarinimada hooyaday aan u noqonayo baari waxa weeyaan buu yidhi maaragtaanay waxa weeyaan albaabadii jannada ka mida looga gelayo weeyaan lidaalika walaalayaal aadaabta islaamka hambarno waalidadeena dhaqanka islaamka kula dhaqanno Abu Hurayra radiyallahu anhu ayaa arkay inan yar oo oday ka daaweyn hor socda marka Abu Hurayra uu joojiyay joogso wariya odaygan muxuu ku yahay buu markaas waa aabahay waa aabaha baha odaygii buu ku yarkeer maxaad u tahay adiguna waa inankaygii buu kii ugu yar caruurtayda marka buu dhageyso yaroo dhageyso buu kaydi aabaha markaad la socoto
ha hormarin hortii ha socon hortay ha fadhiisan hortii ha hadlin aabbaha markaad la socoto ama qofka weyn aad la socoto ama waa laga dambeeyaa ama waa la hareer socdaa hadduu waalidkaagu meel uu damco inuu fadhiistana lama hor fadhiisto dad hadduu la hadlaayana hortii lama hadlo hadduu waalidkaagu kula hadlaayana lama eego wejigiisa dhulka la eegaa buhi dhulka aadaabtaasi dhaqanka islaamkaana baray buuhiye adiguna baro oo ilmahaagana u sheeg dadka kaleed aragtana u sii sheega buu ka yidhi akhlaaqda islaamku waa taas mar keliya unbaa qofka daada weyne waalidkaaga la hormari karaa hal mar keliya unbaa waalidka laga horrayn karaa bay culimmadu leeyihin waa markee waa marka waalidkaaga aad uga baqdo xagga hore cadow inuu kaga yimaado unbaa la hormari karaa bas dadku diinta hadday rabaan inay ku dhaqmaan lacag looma adeegsan karo awoodna looma adeegsan karo nin baa arkay dhallinyar bilaa salaada markaasuu u yeedhay nin maalqabeena buu ahaa wuxuu idhi niman yahow muslimiin baa tiina tukada waxay idhahdeen annagu fuqaraa baa nahee xag ku tukana waxaan cunoo ma haysanee markaasuu fikiray wuxuu idhi anigaa lacag ina siinaye salaad walba markaad tukataan $1 baan qofkiiba siin $1 maalintii waa imse markaa $5 tukada marxaba salaad lacag lagu siiye ka warran si fiican baad u ilaalin soo maha si fiican bay u ilaaliyeen 2 bilood 3 bilood 4 bilood limaada laana bini aadanka baa la yidhi wax bixintiisu nuqsaan baa daba taalla uu daalaa qofku marka dambe wuxuu yidhi mar alle markuu 4 bilood 5 bilood u arkay raggii inay miskiidka ku taxmeen lacagtii uu ka goostay markaas lacagtii nasiibay ku yidhaahdeen wuxuu yidhi salaada maanaadii tukataan markaasay yidhaahdeen dee adaa tukada naga yidhi soo maa wuxuu yidhi waan nagu barayay uune hadda waad barateen oo waad la qabsateene dee iska tukada salaada ilaahay baa nagu laanu naguma lihiye war maahayn annagu ma tukan jirin adaa salaada tukada naga yidhiye lacagna noogu qoray adeer lacagteeda nasiib iyo may iyo waad arki doontaa war iska tukada aan lacagna siin maaye iska tukada markaasay yidhaahdeen waa waxaad ka hesho hee 5 bilood ee tukanaynaba balaawaysa ku tukanay yidhahdeen nabiga ku salliya 5 bilood oo ku dhanbay ku tukanayeen lacag bilaawaysa laakiin halka waxaan u soo qaatay qisadaas waa maxay u fiirso shariica islaamiya nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markii ilaahay uu risaalada u soo dhiibay nabiga diinta halka uu ka bilaabay ummadda in iimaankooda la beero kalimatu taqwa in qulubtooda lagu taago صدح يتوسنوا مكة لا إله إلا الله بنبي مدويري توحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم برا النبي قال له هذا برو قف كسا مسلم واحد يقول لي علمك برو علمك وكل حرية وحقوق الرئيسين علمك وعلم الإيمان وماشى إمام بخاري رحمة الله عليه كتاب بخاري مركو صنفايي وحاو كبل أبي كتاب الإمام بكبل أبي فاعلم أنه لا إله إلا الله وحبرتها إلى حق لبو عابدا كوكا مجرو حدو جرنا والله رب العالمين كليجي حدد إلهي أدقرت وين جيسا أمر كيسا إن أدقادتا أمرك كون بيران أمرك إلهي ندفلسا كون بيران تادرتين دينتن سيسكيغو إيمان يقين علمك أمد لغا دسو عقلك لغا دسو قلبك لغا دسو لأن مركا أمد السنة بير أي دينتا أغدق مكرتا مركاس لذلك بعلمة ليهين ورمانتا دولك إنا دسنو ومباهنين دادك إنا دسنان ما توقباهي بدنا وحوالبا أربا كونا دولك هلا دسو وردالك إنا دساه الرئيس مسددك إنا دسو يا متكيف مهمة إلى تها الشيخ مصطفى إلهي عمري صاحب بركة يا مالين دويتو موضوع عاسو كان لي ضلك إن لا دسو وحا كمهم سن ضدك إن لا دسو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله قيلي دغنيين حولها دغنيين بير بي فلنيين أقل عريشي قليين وكريين نبيقو
inuu khayraadka arlada u tilmaamo u soo saaro uu dhulka u dhiso uu karayay laakiin halkaa kama bilaabin nebigu waxau nebigu ka bilaabay dadka in la dhiso dadkana maxaa lagu dhisaa diin baa dadka lagu dhisaa iimaankaa lagu dhisaa dacwaddaa lagu dhisaa cilmigaa lagu dhisaa akhlaaqda wanaagsan baa ummadda loogu yeedhaa madiinat almunawara markuu nebigu soo gaadhay cabdullaahi bnu salaam baa ka sheekeeyey oo yidhi markaan arkay wejigiisiiba waxaan idhi wallaahi wejigan weji nin been sheega wejigiisii male markaa buu nebigu hadalka u horraysuu yidhi muxuu ahaa yaa ayuha annaas absuu asalaam waatcimu aطacaam wasiluu alarxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam dhaqan madiine waxau nebigu ula yimiday mujtamaca reer madiine ay isku jeclaanayaan ummanimadoodana uu ku dhisayo absu salaam macnaheedu waa maxay salaanta faafiya isku duceeya haddii salaanta la faafiyo salaantu waa duco salaantu maxabbay keentaa way isjeclaadaan muslimiintu hadday salaanta un isla dhex wareegaan silul arxaama baa nebigu yidhi riximkiina xidhiidhiya atcimu acaama ka gaajoonayana cuntaysiiya habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo tukada jannada rabbigii nabadaad ku galasana buu rasuulku yidhi axaadiistaasi waa asaaskii diinta islaamka dowla islaamiya dowladdii nebi maxamed madiine uu ka dhisay wallaahi dhaqaalena kuma dhisin awood ciidanna kuma dhisin waxau nebigu ku dhisay axaadiistaasu ku dhisay imaatat aladaa can ariiqi sadaqa xadiiskaasuu nebigu saxaabada u sheegay qashin magaalada madiina yaalla waa laga waayey warqad taalla waa la waayey bac la tuura waa la waayey qarrad meel taalla waa la waayey qodax meel taalla waa la waayey waayo qof kasta oo muslima xadiiska nebigu ku camalfalaya miskiin gacanta dadka hoos dhigta madiine waa laga waayey maxaa ka baabiiyey magaalada madiine fuqarada atcimu acaama baa lagu dhaqmayaa innagana maanta ganacsatadeennu lacagteena baanankay dhigteen fuqaradeennina maanta gaaja u dhimanayaan madiina sidaa ma ahayn xadiistaasay ku dhaqmayeen markaasaa ka qaniga reero dhan oo fuqaraayu masaariiftooda bixin jiray marka dadka inaan dhisno ayaa ka awlaysan dadku hadday noo dhismaan dalku uu iska dhismo dadku hadday noo hagaagaan noloshan adduunyadu janno ku sug bay noo noqon dadka markaa waxaan ku dhisaynaa dacwaddaan ku dhisaynaa tacliimtaan ku dhisaynaa akhlaaqda wanaagsan baan ku dhisaynaa diinta dadaalkeegaan ummadda ku dhisaynaa insha allah dhahada dee insha allah dhahada dee hal qisamay nagu soo khatima dadka sida loo dhiso ku khatima maaxine nin la odhan jiray bashar binu xaarith waa bashar alxaafi macruuf culamaau hadihi اlumma buu ka mid ahaa qarnigii labaad aqalkiisa waxaa lagu samayn jiray alrakhas lagu daasi jiray lagu ciyaari jiray nin wadaada oo sheekha ayaa iridaysa soo taagay markaasuu ninkii bawaabkii albaabka taagnaa buu ku yidhi aqalkan ninka iska leh ma xor baa mise waa addoon bariga addoomma addoonka jiri jiray mogtahay markaa wuxuu u qaatay addoomihii kale markaasuu may waa sayid waaba isagaa sayida buuli waa xor waa sayid isagaa addoommalo waa nin xor ah ila waa nin xore buuli wax aqalkiisa sidaa loogu ciyaaraayo waa ereyga keliya uu ka dhaqaaqay bashar binulxaaris alxaafi dushuu ka arkayaa uu soo dhaadhacay ninkii bawaabkiibuu u taguu ku yidhi war nink odaygii aaway meesha taagnaa uu dhaqaaqay muxuu kaa yidhi su-aal buu weydiiye wuxuu igu yidhi ninka aqalkan lagu daasaye lagu ciyaaraya iska leh ma xor baa mise waa nin addoona dee maxaad ku tidhi markaasaan ku yidhi buu yidhi de waa nin xor ah dee markaasuu igu yidhi ila waa waxa aqalkiisa se loogu ciyaaraayo ila waa sidaa waxa aqalkiisa loogu ciyaaraayo bashar binulxaaris lilmaa ka daadato wuxuu yidhi anu mayhi buu yidhi xor bal addoon ilaahay baan ahay buuhi hadalka uu kelmadda uu ninkaa yidhi ayaa qalbigiisa ku dhibicday baa layidhi uu cagaagnaa kabama sidan cagaag buu aqalka kaga soo baxo sheekhii buu yidhi ka daba teg kuma noqon aqalkiisii baa layidhi masaajid buu galay taaba tawbatan nasuuxa xalaqaat alcilmigii buu fadhiistay
caalim min culamaa'i lummati alislaamiya buu noqday bal wuxuu ka mid noqday murabbiintii imaam axmed binu xambal raggii waxbaray ee soo tarbiyaday buu ka mid noqday maalin maalmaha ka mid isaga laftigiisa waxa uu soo maray isagoo gaajoonaya oo maalmo dhan siduu cilmiga u dhiganayay darsiga ugu jiray ayaa calooshiiba iyo dhabarkiiba isku dhegay lacag yar buu haystaa wuxuu yidhi bal maanta magaalada tagoo ceesh yar soo iibso suuqa markuu soo galay ayuu arkay magacii ilaahay allah warqad ay ku qoran tahay oo halka maaragtaane masbalada meesha qashin qubka la yidhaahe xashiishku yaalla dhex taalla warqadii buu ka soo dhex qaaday baa la yidhi bullaacadii saasuu ka soo saaray meel buu la yimiday biyo fiican oo daahira buu ku maydhay cadarlaha ayuu tegey lacagtuu ugu talagalay inuu ceesh ku soo iibsado waa nin ahlu sufa ah aalib alcilmi maalmo dhan aan waxba cunin intuu ka booday cunnadiisii cadarlaha intuu tegey buu hi lacagtan baan haystaaye cadar yar igaga ibi buu in yaroo intaa goyso un maxaad ka dhigi waxbaa ka dhigay adigu sii uu ka soo qaatay cadarkii markaasuu warqadii buu hareeraha kaga shubay magacii ilaahay baa ku qoran ilaahay udgoon buu ka dhigay udgoon uu dhunkaday uu soo laalaabay meel fiican buu keeno meeshii buu dhigay habeenkii buu seexday manaam haatif baa ku yidhi yaa bashar sidaad magacayaygii aad u udgoonaysiisay ayaan annaguna magacaaga ilaa qiyaamaha kor u qaadnay baa lagu yidhi waa warqad magacii ilaahay ku qoran yahay imisa muslimiina maanta qalbigooda laa ilaaha ila allah baa ku qoran laakiin cid gacanta soo qabato oo masaajidda keenta markay waayeen istaxwada calayhim ashaytaanu fa ansaahum dikra allah haddii warqad la yidhi darajad baad ku heshay oo ilaa qiyaamaha kor baan kuu qaadna la yidhi muslimkaa dayacan haddaan gacanta soo qabanno oon masaajidda keenno oon cilmiga culummada ku soo xidhno oo salaada ku soo xidhno oo jamaca muslimiinta ku soo xidhno intee baa ilaahayna kana kor inoo qaadaya dacwadda iyo diinta dadaalkeega culummada keliya ma saarnee dhammaanteen xil baa ina wada saarane xilkaa diineed ilaahay baa ina saaray oo nebi maxamed ummaddiisii maadaamuu ilaahay naga dhigay diinta shaqadeeda waan u wada diranahee inaan diinta shaqadeeda u wada kacno wada niyooda insha allah dhahada dee ijtimaaciina waa 23 sebtembar marka reer burco macaawan jamacadada qorqornaa mise ijtimaacaan sugnaa ya ijtimaacaan sugaynaa saasuu sheekhu yidhi soo maha biidni illah soo wada iman maysaan inagoo gogoshiinii wato ilaahay dartii u socda hore adduunyada ma loo socdaa mise waa loo fadhiyaa bali sheega ganacsato ma lihin chinaha tagta oo dubay tagta oo jabaan tagta oo indiya tagta oo turkiya tagta ma lihin waa inaan yeelanaa ducaad caalamiya waa inaan yeelanaa sida ganacsatadeennu caalamiyiin u yihiin ayaa la rabaa reer burca ducaaddoodii culammadoodu odayadoodu inay diinta dadaalkeega qaybta inigaga soo aadan inaad qaadataan baa la rabaa oo caalamka jamacadda u kala dirtaan hal masjidoo jabuuti ku yaalla ayaa haddaba aan ila hadlaayo jamaacay u direen senegaal way soo hadleen xaad la kulanteen baan ku yidhi waxaan ku baxnay tuulooyin waxaan ku baxnay dadka ku nool boqolkii boqol muslimiin ay yihiin boqolkii boqol muslimiin ay yihiin laakiin salaadda ma tukadaan markaan idhi maxaa u tukan weydeenna waxay yidhahdeen annaka awliyadeeda naga tukato lacag siinaa midun baa lacag intuu ka ururiyo kacbaduu tagaa 2 bilood buu ku soo tukadaa salaada maka lagu tukado waa 100 kun oo salaadood ana inii soo tukaday iska nasto buu ku yidhahdaa ma soconaysaa warkaasay jamaacadadu soo gudbinayaan markay dhulkii tageen oo yaabayiin jamaacad kalean u dirnay Ghana wadda kale Ghana iyo Bena iyo Togo masaajidka gabadha waxay soo galeen surwaal gaaban wadataa cabaayada masjidka u dhex taala masjidka ku dhex xidhani markay salaada tukatana way saari surwaal gaaban baa la baxaysaa waana muslimiin waryaada walaan wadankeena saxwada islaamiga ee geeska Afrika ilaahayna siiyay ayadoo jasiirada al-arab maanta masaajidu xidhan tahay oo dacwada iyo saxwada aan haysano culimadoodii aynan haysano afka la qabtay ayaa ilaahay maanta inaka nicmada ayna siiyay maanta fursadda ayaanan dayicine maanta hadday gacanteena ku jirto waa suuragalnay berri ka baxdee han ka qaniimaysano risaalada han qaadno oo caalamka ummadda dacwadda han gaadhsiino insha allah dhahada